معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. آت الكف يا مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. xalqadan maanta waxaynu isxasuusinaynaa walaalaha i dhegeysanaya meel kastoo ay joogaan daafaha dunida. waxaynu isxasuusinaynaa alxikma min alibtilaa, xikmadda ku sugan ibtilaaga iyo imtixaanka. ibtilaa waxaa la yidhaahdaa alikhtibaar waalimtixaan. waa in lagu imtixaamo oo lagu jaribo ayaa imtixaan la yidhaahda, ibtilaa la yidhaahdaa. ilaahayna subxaanahu watacaala isagoo xaaladaheena ogsoon oo cilmigeena ogsoon oo wax ka maqan cilmigeena aanu jirin, ayuu subxaanahu watacaala xikmad uu ogsoon yahay uu doonay oo mashiicadiisa ah inuu imtixaamo oo shar iyo khayr labadaba inagu imtixaamo. sida ilaahay qur-aanka meel ka mida uu ku sheegay suurat alambiyaa waxaa ka mida qowluhu tacaala, ilaahay yihi kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wailaynaa turjacuun. naf kastaaba geeri bay dhadhamin doontaa. albaqaau lilaahi waxdahu, ilaahay keligii unbaa subxaanahu watacaala baqaaga iska leh. walawal falaa qablahu shay, waa awal oo wax ka horeeyey ma jiraan. wahuwa alaakhiru falaysa bacdahu shay, wahuwa albaatinu falaysa duunahu shay, wahuwa adaahiru falaysa fowqahu shay. ilaaha weyne waaxidkaa subxaana tafaawal xakiim, waa ilaaha xakiimka ah ee asmaadiisa xakiim uu ka mid yahay. walahu alxikma, sifaadkiisana ilaaha xikmadu ay ka mid tahay weeye ee aan khaldamin. yafcalu maa yashaa bixikma, wuxuu doonana ilaahay wuxuu u samaynayaa xikmo subxaanahu watacaala. sidaa marka ay tahayba xikmadda waxa uu doonay waxaa ka mid a ilaa ina imtixaamo. marka waa nolosha saa ay maraysa. haddaynu bini aadanka nahay waynu dhalanaynaa, waynu dhimanaynaa. marka qof dhasho waa farxaynaa, marka qof dhinto waynu naxaynaa. marka farxad iyo naxdin baa wada socda, oohin iyo qosol baa wada socda. mar waa qoslaynaa, mar waa yani ooyeynaa. inahu huwa adxaka wa abka. oohinta ilaah baa inoo subxana watacaala inoo qadaray jala jalaaluhu. qosalkana ilaah baa inoo qadaray subxaana watacaala. marka shar iyo khayr ba ilaahay wuu inagu imtixaamaya subxaana watacaala. fitna adduunyada waa imtixaankeeday ka mid tahay. marka guud ahaan iyadoo basharku taa ka wada siman yihiin oo guud ahaan bini aadamka o dhan la wada imtixaamayo, baa si gaara waxaas looga khaasana loosii imtixaamayaa ahluliimaan, dadka iimaanka u saaxiibka ah. xikan badan baana ku jira. xikanka waxaa ka mida kow, siday culammadu inoo sheegeen, ilaahayna subxana watacaala kitaabkiisa inoogu tilmaamay subxaana watacaala, inoogana soo istimbaadayaan culammadu. waxaa ka mid ah in dadka qaarkood addoonnimada ay ilaahay u muujiyeen inay addoon ilaahay yihiin subxaana watacaala, in addoonnimadaasi dhab ay ka tahay oo saxiix ay ka tahay, in markaa la jaribo oo la imtixaamo. imtixaankaasi haddii iimaankooda rasmi yahay way ka soo baxayaan, haddii iimaankooda aanu rasmi ahayna way ku dhacayaan. sidaa darteed baa waxaa qur-aanka ka mida qowluhu tacaala, wamin annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayru idma'ana bihi wain asaabathu fitnatu inqalaba calaa wajhi khasira addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan almubiin. dadka waxaa ka mida buu ilaahay leeyay, wamin annaas, dadka waxaa ka mida qaarkood, man yacbud allah, mid alla caabudaya calaa xarfin. xarfina waxaa la yidhaahdaa meesha gebiga ah ee maaragtay yani dacalka ah ee qofku hadduu ka dhaco, ama aynu laagga nidhaahno oo kale, laaggaasi hadduu ku istaago uu hoos uga dhaco inuu halis u yahay inuu ka dhaco. wamin annaasi man yacbud allaha calaa xarfin, xaraf bay ilaahay ku caabudeen, meel laagahoo laga siibanayo
ayuu alle ku caabudaya. waa la inoo fasiro, ilaah baa inoo fasiro waa maxay laagaasi. fain asaabahu khayrun itma'ana bihi, adduunyada haddii la imtixaamo oo khayr loo furo, khayrkaasi waa maalkii, xoolo la siiyo, caafimaad la siiyo, caruur la siiyo, waxaa adduunyada dadku jecel yihiin la siiyo, idma'ana bihi baa ilaahay yidhi, wuu ku xasilaya, waa ku degaya. fain asaabathu, haddii aan waxaa la imtixaamo oo sida kale loo dhigo oo khayrkii waayo, oo maalkii waayo, oo caafimaadkii waayo, xanuunsado, awlaaddii waayo, iyo wixii la mid ah ee mashaakilka adduunya ay la kulmaanna, inqalaba calaa wajhi baa ilaahay yidhi, dib buu u laabinaya. khasira addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraan mumkaasi. if iyo aakhiraba wuu khasaaray. iimaankiisii baa soo baxay inuu shay la-aan yahay, waxba la-aan inuu iimaankaasi yahay ayaa soo baxay. dadka muuminiinta laftigooda waa la imtixaamayaa. ilaah baa le subxaana wa tacaala, axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. dadkuma waxay moodayaan in lagu daynayo lafdiga ah aamanna wahum laa yuftanuun, iyagoo aan la imtixaamin. noloshoo dhan iyadoo imtixaan u samaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala tabaaraka aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ay tahay, ayaa haddana dadka muuminiinta darajaadka iimaankoodu siduu u kala sarsareeyo ayaa imtixaanaadka lagu muujinaya. ilaah baa qur-aanka wuxuu ku leeyay, maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib wamaa kaana allahu liyudnicakum cala alghayb. ilaahay qaybka idin tusi maayo, oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyi buu qayb ka mida inoogu sheegaa oo rusushu inoogu waxyoodaa, laakiin waxyiga qaybka isaga ayaa la gooniyaho keligii baa ogsoon. wamaa kaana allahu liyudnicakum cala alghayb walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaa. ciduu doono ilahay rususha ka doortaayoo waxyi buu idinku soo dejiyaa, qaybka ka mid a ayuu ilaahay subxaana wa tacaala idinka warrama. muuminiintana sidaa loo deyn maayo, waa la kala imtixaamaya. bal meelo badan oo qur-aanka ka mid ah sidaa la inoogu tilmaamo in iimaanka lagu kala soocayo. waxaa weeyaan waxaa kaloo ka mid a marka xikamka ibtilaaga ila inoo imtixaamaya subxaana wa tacaala, dembiyada inaga dhacaya in la inagaga dhaafo, oo qodaxda yare ina mudaysa, xanuunka aynu xanuunsanayno, waxaa mashaakilka adduunyada inugu asiibaya, waxaasoo dhan mararka qaarkood waxaa laga yaaba inay sababtu dembi tahay, dembigaana laynagaga dhaafayo. mararka qaarkoodna aanay ahaynba dembibe ay tahay darajaad kor laynoogu qaadayo, oo ilaahay subxana wa tacaala jannada darajaadkeeda dee si sahlan laguma gaadho. xadiidkuna wuxuu inoo tilmaamay inaan camalkeenu jannada gelisteedaba aanu u cuntamin oo aanu ina gaadhsiinayn, ee jannada lagu gelaya bifadli illaahi. darajaadka dhex yaalana hadalkeeda badaa. markaa si darajaadka dad badani ay u gaadhaan oo mu'miniinta ka mid a, in ibtilaa iyo imtixaan la mariyo waa xikmadaha ka mid a ibtilaaga iyo imtixaanka la inoo marinayo. mararka aynu aragno waxaynu ka goosanaynana, casى an takrahuu shayئa wahuwa khayru lakum baa la yidhi, casى an tuxibuu shayئa wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu waantum laa taclamuun. badiyaaba waxa khayrku inoogu jiro garan mayno. sida qaarkood la inoo tilmaamo qisadii luqmaan alxakiim, ninka loo bixiyey luqmaan alxakiim ee inankiisa dhawaaninayay, ayuu yihi aabba waxaan kuu sheegaya wax kasta oo aad la kulantaa, xataa sharba ha yahay oo ishaada adiga sharba ha ahaadee, khayr buu kuu yahay xagga ilaahi subxaana wa tacaala, adiga khayr baa kuugu jira. markaasaa la yidhaahdaa maalintii dambe qisada iyagoo meel kusii socda ayaa markaa inankiisii gacan lugta waxaa ka muday, nabar baa ka muday. markaasaa la yidhi aabba soodigii lahaa, wuxuu arkay odagiyo ooyayo ilma ka timi, suu yihi dee ilmadan maxaad la ooyeysaa, soodigii gu lahaa waa khayr, wixii ku asiibaa hadduu walow sharba ha ahaadee waa ibtilaagaasi waa kuu khayr. markaasaa yidhi haaba waa sidiiyo weli iskamaan bedeline, ilmadanna waa tii waalidnimo, marka khayr inay inoo tahayna shaki ma laha. marka waxaa la yidhahaa markii dambea la yidhi markaa ilaahay subxana wataala qaryaday kusii socdeen halaag ku dhacayey ayaa laga joojiyey oo laga xabiso, nabarkaa ku dhacay inanka ayaa lagaga xabisay. xataa waxaad adigu shar moodeyso oo khayr ku ah ayaa jira. waxaa ka mid a markaa in ilaahay subxaana wa tacaala darajaadkaaga kor ugu qaadayo, ibtilaaga ilaahay ku imtixaamaya darajaadkaaga in ilaahay kor ugu qaadayo subxaana wa tacaala. waxaa ka mid a markaa xikamka ilaahay subxaana wa tacaala inoo ixtimoonaya in addoonnimadaada lagu tuso, baahida aad ilaahay u qabto inaad mar walba ogaato, si aan kuugu dhicin cudurrada xunxun oo camalkaaga kuu cajabin, oo camalkaagu isla weyni kuugu ridin, oo camalkaagu kibir aanu kuugu ridin, sidii cudurkii ibliis ku dhacay oo kale ana khayrun minhu aanu kugu dhicin. mararka qaarkood in lagu imtixaamo waad u baahan tahay, waynu u baahanno, waa xikamka ilaahay, waa sunan kowniya. xataa dadka oo dhan bal inay tadaruc la yimaadaan, addoonnimadaada inaad ogaato, baahidaad ilaahay u qabato, muncimka inaad garato, oo waxyaabaha aynu aad iyo aad ugu baahannahay in ilaahay subxaana wa tacaala ibtilaa bini aadanka la imtixaamo marna fi saraa. labada culimmadu waxay idhaahdaan ibtilaaga saraaga iyo ibtilaaga daraaga waxaaba sii daran ibtilaaga saraaga. waayo daraaga qofku waxaa laga yaabaa inuu mar uun isxasuusto, inuu mar uun dhibtiisa arko, markaa daciif buu u yaho wuu u taag daran yahay dhibta. oo marka haddaad maanta da'daadu ay tahay 60 jir
konton sannadood haddaad caafimaad qabto 10 sannadood waxa loogu rido 10 sannadood baa ka hawl badan kontonkii sannadood caafimaad kontonkii sannadood caafimaadka ma dareemaysid iyo tirada inta leeg ma dareemaysid laakiin 10 sannadood xanuuna u adkaysan maysid hal sanaanad u adkaysanaynin maalin baanad u adkaysanay iyo wax ka yar marka inay dacfigaaga ay tahay oo marka labada waxa hawl badan ba in ibliis baa la yiraahdaa ma xanuunsado oo ma bukooda waa la ibtileeyay maxaa lagu ibtileeyay sharkiisi oo dhan baa dib loogu dhigay wadaalika xikmadda waxa kamid ah bay culimadu in dambiyada lagaaga jafjafo oo lagaaga yaryareeyo sayi'aadka lagaaga yaryareeyo qii ilaahay nicib yahay subhanahu wa ta'ala sida ibliis oo kale wixiisa waa loo kaydinaya ayaa aakhira la wada siinaya iyadoo sideediya darakaadka naarta kuwa ugu hooseeya ee ugu waaweyn la geenayo ciyaadan billahi ilaahay banu ka magan galeynaa sida darteed waxaanu leenahay xikamka ku jira way fara badan yihiin ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa xakiim xikmadna waa ilaaha sifada u leh subhanahu wa ta'ala wax allaale wuxuu ma qaldamo wax kasto ilaahay uu inoo soo dejiyay oo qadaagiisa iyo qadarkiisana xikma inooga jirta wa salaamu calaykum wa rahmatullahi